luqadda la adeegsaday qodobada la soo banbixiyay iyo fariimaha hoos ku qarsoon dhammaantood waxay tilmaamayaan in xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga uu galay marxalad istiraatiiji ah. Sayın Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, khudbadda caawa Istanbul laga jeediyay waxay muujinaysaa isbedel si cad loo qorsheeyay oo ku yimid jihada xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga. hadalku ma ahayn mid ku koobnaa soo dhaweyn rasmi ah ama mid saaxiibtinimo oo iska caadi ah, balse waxa ay ahayd khudbad si xeel dheer loo miisaamay una dhisnayd inay qeexdo doorka Turkiga ee Soomaaliya maanta iyo mustaqbalka fog. Tabinteennan Tifaftir Media waxaan ku eegaynaa nuxurka khudbadaas ay xambaarsaneed annaga oo la fagurayna waxa ay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo Turkiga labadaba. Soo dhawaada. Somali ile her alanda gelişmeye devam eden ilişkilerimizin temelinde köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız vardır. 2026'da Somali ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. senesini idrak edeceğiz. İnşallah bu sağlam Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga oo uu barbar taagan yahay madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahmud ayaa hadalka ku furay erayo shakhsi ah isaga oo adeegsaday walaalkay, taas oo ah farsamo diblomaasiyadeed oo si toos ah u xoojinaysa xiriirka hogaamiyayaasha labada dal. Tani waxay ka baxsan tahay hab maamuus, waa fariin muujinaysa kalsooni iyo xiriir gaar ah oo ka dhex jira labada dawladood. marka calaaqaadku heerkan gaaro waxa fududaanaya in heshiisyo waaweyn la galo isla markaana la hirgeliyo go'aamo waqti dheer saameyn leh. xuska sanad guurada 6aad ee xiriirka diblomaasiyadeed ee la filayo in loo dabaaldego 2026 wuxuu ahaa qodob si ula kac ah loo doortay. ujeedadu ma ahayn xusuusin taariikheed oo kaliya, balse waxay ahayd in la muujiyo xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga uu leeyahay saldhig sharci iyo mid caalami oo muddo dheer soo jiray. tani waxay ka hortagaysaa dood kasta oo sheegaysa in xiriirku yahay mid ku dhisan duruufo ku meel gaar ah ama dana degdeg ah. marka la gaaray xaaladii 2011 khudbadda waxay qaadatay jiha shucuureed iyo mid siyaasadeed. Erdoganna wuxuu dib u xusuustay booqashadiisii uu ku tagay Soomaaliya xilli ay dalkan ka jireen abaar, burbur iyo go'doonsanaan caalami ah. tani waa xusuus aan sibiq uga guurin maskaxda samajeclayaasha Soomaalida, isla markaana Turkiga u noqotay astaan uu ku muujiyo inuu ahaa saaxiib joogay xilli xaaladdu adkayd. siyaasad ahaan tani waxay siinaysaa Turkiga sharciyad uu ku sii ballaariyo doorkiisa maanta. hadalka ku saabsan horumarka amniga ee Soomaaliya ayaa si taxadar leh loo dhisay. waxa la qiray in Soomaaliya ay gaartay horumar aan sahlanayn, balse isla mar ahaantaana la xusay inay jiraan kuwa aan rabin in Soomaaliya ay dib cagaheeda isugu taagto. oraahdan waxay xambaarsanayd laba fariin. midda koobaad waa in horumarka la gaaray uu dhab yahay, tan labaadna waa in wali loo baahan yahay taageero dibadeed gaar ahaan midda Turkiga. tababarka iyo qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Turkiga ayaa loo soo bandhigay tusaale cad oo muujinaya iskaashiga amni ee wax ku oolka ah. Turkiga tani waa fursad uu ku muujiyo awoodiisa ciidan iyo gaashaandhig. Soomaaliya se waa tiir muhiim u ah dib u dhiska hay'adaha amniga qaranka. isbedelka amniga ayaa si xeeladaysan loogu xiray horumar siyaasadeed. doorashooyinkii ka dhacay gobolka Banaadir oo ay ku jirto caasimadda Muqdisho waxa lagu fasiray natiijo ka dhalatay xasilooni iyo amni soo hagaagay. fariinta halkan ku jirta ayaa ah in amniga iyo siyaasadda gudaha ay si toos ah isugu xiran yihiin, isla markaana taageerada Turkiga ay qayb ka tahay jawiga suurtageliyay tallaabooyinkan siyaasadeed. marka khudbadda loo leexiyo dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan tamarta, hadalka wuxuu noqday mid miisaan culus leh. sahaminta badda Soomaaliya ee shidaalka ee markabka Orug Race, qorshaha qodista shidaalka 2026 iyo ku darista maraakiib cusub ayaa muujinaya in Turkiga Soomaaliya uu arko dal leh kheyraad istiraatiiji ah oo waqti dheer wax taraya. tani waa isbedel weyn marka la barbar dhigo sawirkii hore ee Soomaaliya oo loo arki jiray dal gargaar u baahan. heshiisyada kalluumaysiga ayaa iyaguna xambaarsan fariin dhaqaale iyo mid amni. la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah iyo dhisidda awood farsamo oo maxalli ah waxay Soomaaliya siinayaan fursad ay si madax bannaan ugu difaacato kheyraadkeeda badeed. Turkiga se tani waxay u tahay fursad uu ku yeesho saaxiib badeed oo istiraatiiji ah oo ku yaala marina ganacsi oo muhiima. qodobka iskaashiga hawada ayaa ah kan ugu cajiibsan uguna fog aragti ahaan. qorshaha lagu dhisayo saldhigga dayax gacmeed oo Soomaaliya laga hirgelinayo wuxuu ka tarjumayaa sida Turkiga u arko juqraafiyadda Soomaaliya inay tahay mid istiraatiiji ah.
mashruucan wuxuu ka gudbayaa caawimo iyo iskaashi caadi ah wuxuuna gelayaa heer tiknoolaji iyo saameyn caalami ah. Soomaaliya tani waa fursad ay ku gasho goob aan horey loo filayn. Turkigase waa ballaarin istaraatiijiyadeed oo ka baxsan xuduudihiisa. Marka la gaaro qodobka midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya, luqadda hadalka ayaa si muuqata isu bedeshay. Erayada la adeegsaday ayaa waxaa ku jiray sharci darro iyo inaan la aqbali karin. Labadaas waxay muujinayaan mowqif adag oo aan mugdi ku jirin. Tani waa fariin si toos ah ugu socotay quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku lug leh arrimaha Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, isla markaana Turkiga ka dhigaysa dhinac si cad u taageeraya dawladda federaalka. Hadalka ku saabsan in go'aamada mustaqbalka Soomaaliya ay yihiin inay ka yimaadaan rabitaanka dhammaan Soomaalida wuxuu isku darayaa laba arrimood: taageero siyaasadeed iyo xadayn faragelin. Turkigu wuxuu doonayaa inuu u muuqdo saaxiib tala bixinaya balse aan si toos ah u faragelinaynin go'aamada gudaha. Khudbadan waxay si cad u muujisay in xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga uusan ahayn mid hal dhinac kaliya faa'iido u leh. Soomaaliya waxay ka helaysaa taageero amni, maalgashi dhaqaale, dhisidda awood farsamo iyo garab siyaasadeed oo caalami ah. Turkigana wuxuu helayaa saaxiib istaraatiiji ah oo ku yaala Geeska Afrika, marin juqraafi oo muhiim ah, fursado dhaqaale iyo tiknoolaji iyo saameyn siyaasadeed oo sii ballaaran. Haddii si hufan, daahfuran oo istaraatiiji ah loo maareeyo calaaqaadka Soomaaliya iyo Turkiga, wuxuu noqon karaa iskaashi dheellitiran oo ku dhisan dan wadaag, kana gudba gargaar ku meel gaar ah una guura iskaashi waara oo dhisma mustaqbalna ku salaysan. waa xiriir labaduba ka faa'iideysanayaan, natiijadiisuna ay saameyn ku yeelan doonto jiilal soo socda. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa falanqayntii aan ku sameynay khudbadii uu jeediyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. waa Abubakar Maxamed oo idin leh, waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin. ha mogaanina inaad ku xirnaataan Tifaftir Media. intaanu dib u kulmayno, nabad iyo warsan.